waxaa jira xanta qofkaaga xiriiryeelashadu waa wax qof walba bini'aadama soo mari doona hagaag haddaba maxaa xiriir adkayn kara oo ka dhigi kara mid aan si fudud ku burburin muuqaalkan kaga bogo waa 11 waxyaabood oo keliya intaynu gudagelin muuqaalka like sidoo kalena ku soo biir kanaalka mahadsanid number 1 ha sugin ilaa ay kaa soo wacayaan iyaga waa dhibaato aad weyn markaad sugto qofkaas isaga ama iyadu inay kula soo hadlaan taasi waxaan oran karaa madax adeeg iyo isla weyni jacayl waliba wuxuu ku tiirsan yahay isdanayn iyo iska fikirid waxaad rabtaa inaad yeelato xiriir guuleysta qofkaagana aad isaga sugto ma isbixinayso waa markaad waqti dheer kala maqan tihiin ugu yaraan xitaa haddii aad u xanaaqsan tahay ku dheesee tahay caafimaadkaaga iga waran at least qofka u muuji inaadan ka maqnaan doonin qof ayaad isku yara xanaaqdeen taasna waa wax iska normal ah laakiin inaad aamusnaato waqti dheer maaha normal waxayna sabab u noqon kartaa in qofkaas sii cuqdadoobo muhiim uma aha xiriirada inay noqdaan mid la isa sugo number 2 dulqaad iyo cafis muuji marka uu khilaaf dhaco moogtahay awoodda ay leedahay cafiska tani kaa dhigi mayso daciif balse waxay kaa dhigaysaa mid weyn oo awood leh cafiskuna waxaa loo qaybiyaa mid qofka aad u sheegto iyo mid qofka oo aan ogeyn aad iska cafiso oo aadan u qaadin wax kale oo cuqdad ah haddii ay jirto waxyaabo idin dhex maray oo cuqdad ah iska saamax waayo tani awood buuxda ayay ku siinaysaa waxay kor u qaadaysaa xiriirkaaga qofkaagana wuxuu ugu yaraan kugu jeclaan karaa cafiskaaga iyo dulqaadkaaga waadna ogtahay cafisku inuu eebo aad u jecel yahay dulqaadka waa mowduuc muhiim u ah xiriir kasta kuma liihi waxaa jira xiriiro toosan oo aanan lahayn dagaal caqabad xanaaq qayl iyo wixii la mid ah tan jirta waxay tahay qofku waa banu aadam wax ayaa si ka noqon karaa waxaadna isugu dartaa cafis iyo dulqaad hadduu kugu qayliyo ama kugu xanaaqdo ha ka daba qaylin isdeji oo dulqaad muuji waan ogahay Soomaaliyaad tahay laakiin runta kuu sheegayaa xiriirka awood uma baahna daciifna ma tihid haddii aad taas samayso keliya xiriir wanaagsan waad yeelan kartaa madax adeeg iska daa 3 ha inkirin lamaankaaga ama lamaantaada haddii ku soo wacan ama fariimo kula wadaagaan xaalad kastoo aad ku jirto ka qabo la hadal waqtina sii ma ogaan kartid qofkaaga wuxuu ku sugan yahay mararka qaar kalgacayl ayaan qofkeena u wacnaa si aan ugu raaxaysano codadkooda kaftankooduna aan ka dhigano waqti farxadeed laakiin waxaa khasaara ama taqaanaa waa marka ay taas lunto oo meesha laga waayo ma jirto dareen ka xun qof inaad u wacdo kalgacal iyo xiiso kadibna kugu dhageysto adigoo faraxsanna aad jawi kale geli karto waan ogahay waa dareen xanuun badan mana wanaagsana xitaa haddii aad mashquul tahay ka qabo ama fariin u dir adigoo sheegaya inaad mashquul tahay oo aad dib u soo wici doonto balan been ahna ha qaadin markaad ka dhammaato kadibna ku celi number 4 ha caajisin jacaylku wuxuu ku dhintaa gabar caajistay iyo wiil caajisay dhexdooda ha ma jeclid adigaba in laga caajiso adigoo hadlayana waa la mid waa mid xanuun badan xiriirna ma wadi karo caajisku wuxuu qayb ka yahay qodobkii horey aan uga hadlay waa shucuur aadan xitaa adugu jeclaanayn waa mowduuc aad u xun waqti bixi si xiriirkaagu qurux badnaado xiisana u yeesho 5 ha ku kibrin kibirka iyo yasidda waa bilowga burburka xiriirka gabar iyo wiilka doonta haw qodobkan waa la wada leeyahay inkastoo lagu kala badan yahay kibirku astaan wanaagsan maaha wuxuu leeyahay caqabad badan oo kala geyn karta xiriirada waxay aaminaan in waxa ay sameynayaan ay tahay wax wanaagsan laakiin runtu waxay tahay isla weyni iyo kibir xiriirkaaga kaliya ma dhibaateeyo ee xitaa adiga ayuu ku dhibaateeyaa bulsho ahaan ma ku wanaagsano 6 ha eedayn waqti kasta iyaga dabeecad ayaan ka dhiganay dhib kastoo dhaca inaan qofkeena eedda saarno inagoo leh adigaa sabab u ah adigaa sidaan sameeyey hadday xitaa sameeyeen mar walba ha eedayn maxaanu leeyahay eedda badan qalbiga ay dhaawacda marka dambe waxaad arkaysaa qofkaaga oo ku dhahaya aniga mar walba waan ku murjiyaa soomaha taas qalbigooda ay dhaawacaysaa bedel
waxaad dhahdaa gacaliso ama gacaliye, tan waa qaladaadkeena, waynu saxaynaa, uma laaban doono, ee wixii dhacay waa wax iska caadiya, ha isku mashquulin, si wada jira ayaanu xalinaynaa insha allah. 7 ha xaqirin waxay kuu qabteen, balse uga mahad celi wax kasto. waaw maasha allah, aad ayaan ugu farxay dadaalka aad samaysay. hadal kooban balse dhiirigelin kara qofkaaga, farxad badanna siin kara. mararka qaar waxay samayn karaan dadaal ama shay ay doonayeen adiga inay kugu farxad geliyaan, laakiin nasiib daro dadaalkoodii meeshii la rabay aanu gaarin. markaana adiga ku dhiirigeli oo ha tusin in waxaas aysan haleelin meesha saxda ah. xitaa u sheeg dadaalkooda, laakiin hani jabin. waxay taas hoos u dhigi kartaa qofkaaga kartidiisa iyo fikirkiisa. 8 samir u yeelo caqabadaha xiriirku leeyahay. rag iyo dumar waxaan si caadi ah u leenahay caqabado, waxay doonaan ha ahaadeen. kuma lihi caqabadaha xali, laakiin haddii aadan xalin karin, dulqaad u yeelo, kuna samir. allah ayaa kaa bixin doona. wax walba waxay ku wanaagsan yihiin inay qurux badnaadaan. sax? no, fikir khaldan. mararka qaar waxyaabaha qaar inay qaldamaan waxaa ku hoos jirta cashiro ay tahay inaad barato kana fiirsato. 9 isaga uun wax walba ha ka sugin, ama iyada uun wax walba ha ka sugin. qasab maaha in laysa sugo mar waliba. waxaa aas-aas u ah xiriir kasta in lays caawiyo. haba u horeysa caawintaas midda dhiirigelinta iyo waxa isu sheegidda. keliya maaha inaad wax bixiso qofkaaga. hadday dan dhaqaaleed haysato, inaad wax siiso way wanaagsan tahay. inaad dhiirigelisana way wanaagsan tahay. inaad wax aad la jeclaatay u hadiyadaysana way wanaagsan tahay. in iyagu wax ku weydiistaan aad u samaysana iyaduna way wanaagsan tahay. xiriirkaaguna way xoojin kartaa. 10 qodobkani gaar wuxuu yahay ragga. dhowr gabadha xuquuqdeeda, ma ahan in la isku xadgudbo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo kala sameeyey sharciyo iyo inaynan isku xadgudbin. xaaskaaga ama qofta aad doonayso inaad guursato, xaq uma laha inaad ula dhaqanto sida aad doonto. xaq uma laha in iyadoo waqti kugu leh aad qof kale waqti siiso. hadday maqan tahay raadi, hadday xanuunsan tahay garabkeeda noqo, hadday dhibaato ku jirto caawi, hadday kuu baahan tahay ha cidlayn, hadday ku dhibsato ha dhibin, hadday kuu xiisto ha fogeyn, hadday kugu qayliso ha ku qaylin. adiga waxaad og tahay inaad tahay boqolow. dulqaadka ugu badanna adigaa lagaa rabaa, samirkana adigaa lagaa rabaa. inta ugu badan inaad dhowrto oo aad ilaalisana adigaa lagaa rabaa. inaad ka warqabto aad la socoto jawigeedana adigaa lagaa rabaa. nambar 11 dhowr wiilka xuquuqdiisa. dumarka gaaru ma ahan in iyagu keliya ay leeyihiin xuquuq. wiilkuba wuxuu leeyahay xuquuq gaaru ah, mana aha inaad ku xadgudubto. waxaad u baahan tahay isaga xitaa inaad ilaashato oo aad tusto jacaylka inta ugu badan. kuma dhahayo gabar taas ma samayn karto. ninkaaga ama lamaankaaga adigaa ka dhigi karaa mid adag, adigaa ka dhigan karaa mid kalsooni badan qabo, adiga u noqon karaa qayb ka mida guulahiisa. soomaalidu hore waxay ugu maamaahday nin guul gaaray dumar ayaa ka dambaysa. dumarka adigaa noqon kara, hooyaa noqon karta, walaasha ayaa noqon karta. ilaalin ayaa lagaa rabaa. muuqaalkeena maanta intaas ayaan kusoo koobay guys. I hope inay idin fiici doonaan. sidaas haddii tahay like saar muuqaalka, sidoo kalena nagu soo biir, wax badan ay nagu dhiirigelinaysaa. until we meet, salaam.